بسم الله ومرك لي channel كيني قناة ميديا يا دوغا براتين تاريخ ذا يا عشرة أي تيجا يدع دوين في الدنيا وصح ما أنتوا حن بلعب الدونا عشر كيني وجوه الرئي ما دام إنه قصوا بحني شرحات دي يفهم كي HTML CSS وحيين ما أنت كود كي وجوه الرئي أي إنه بلعبينا طبعا أنا بروح استعمالها سبليم من استعمالها سبليم تقص من استعمالها هذا واحد استعمال سادي كنت تعمل نود بيرد كين عادي قاعد استعمال أما واحد استعمال شا نود بيرد بلاس أما سبليم أما فيجوال ستوديو كل بقى استعمال شد هذا قاعد اختيارك ولا وهي هي مركا وهي HTML سبليم مركا استعمال سادة سبليم إلى استعمال يسيد أنا سبليم يرون سوقاته ولي ريجسترد ما هو أن ريجسترد ويا سبليم تيد ولي ما بنكره جرين مركا يعني marka hore la sii save gareeyaa Sublime iyo Notepad plus labadaba sii save gareey save aan sii oranaynaa way halkan baynu marka ku save gareynaynaa waxaan iyadoo extension kiina wadata tusaale first lesson markan ku save gareynaynaa first lesson dot baan raacinaa mar walba html dot ka xasuusno haddaan nimankan nidhaahno haddaan hashtag ka tagno html kaliya raacino oo san nidhaahno save hadhow inoo shaqeynay html tag inoo shaqeynay markaas si uu u fahmo waa inaan nidhaahna first lesson dot html dot ko very important kadibna html markaan qornayn tab taabto tagiskii oo dhan buu wada qorayaa tagiskii oo dhan ayuu wada qorayaa document type html ka sare dadka saartay hadii kale isla mid html5 ka ayuu la socdo waa version dambe marka waa sax title kana daba muxuu qabtaa title maxaa tahay title waxa weeyaan ciwaanka sare halka waxay nooga muuqanaysaa tusaale ahaan halka maxaa ku qoran see users class media product videos first lessons la halka title browserka ka tagaysa waayahay marka imika code-kii baynu dhex joognaa first lesson inooga dhig halkan first lesson inooga dhig waayahay kadib boardgan waa halkii wax ku dhex qormayeen tusaale ahaan imika haddaan saa ku save mar walba wax ku darto save garanaysa kadibna right click waa taa Sublime isticmaalaysid open browser waa marka Sublime isticmaalaysid ka fiirso waa kan imika inoo soo furay imika waa ka waxba first lesson halkeen noogu taala waa taa title-keena waa ka halkaas ku yaala halka imika haddaan first lesson ka bedelno oo aynu ka dhigno f kaliya haddaan ka dhigno save garayno mar walba wax ka bedeshid ama modification aad samaysid waa save garaysa f kaliya ayay noqonaysaa f kaliya waayahay yani noogu soo celisideenii hore waayahay boardgan waa halkii wax lagu qoray imika haddaan saa ku dhex qoro boardgaasi waa inuu soo baxaa intaas xarfood waa inay halkan ka soo baxdaa refresh markaan siiyo markastoo la refresh garayna browserka wata way marka website-ka lagu sheegayaa waa intan oo la sii qurxiyay waayahay marka tag ugu horeeyay waxaan bilaabanaa h1 heading-kan ku horeynaa h1 ayaan bilaabanaa h1 kaasaan ku qoraynaa magaalooyinka Soomaaliland kala ayaan tirinaynaa waaweyn Hargeysa save garay kadibna h1 oo ka Hargeysa noo qoran h1 ku waa head1 waa ciwaanka ugu weyn h1 waa ka ugu weyn ee la qoro sayska si kala loo bedel karaa laakiin h kaliya markuu taaga ku dhex jiro waa h2 waa ciwaanka ka sii yar burca ku xigta Soomaaliya soo Hargeysa Soomaaliya ka dhig way burca ku xigta Soomaaliya burcana way ka yaraanaysaa sidaa burcana way ka yartaa way h3 marka hadaan idhaahno marka tag mar walba waa h3 haddaad h3 kaliya iska qortid uma soconayso marka markaan h3 kaliya taabto inuu Sublime baan isticmaalay Notepad ma tab aan taabanay iyadoo buuxinaysa kadibna boorama markaan save gareeyo boorama way ka sii yartahay burco iyo boorama way kala yar yihiin way tabataan maxay ku xigsiiyo أما حكي عكسية H4 ونراهضة بربرة وساف قراية كدبنا
بربرنا بورا ما وكسيرتها بيسيكل يريهم إيه هذا نمك H5 إلى هذا H5 أما عادي بقى نقرأ HE5 راعي كدبنا صاحب HE5 وهي إيرقابة ونسف كريه إيرقابة way كسيرتها بربرة marka way kasiyartahay dhammaan sidoo kale horeeyaan magaca sheegayaan font size ama cabirka magaalooyinka kale waaweyn ma lihi laakiin cabirka fontiga ama cabirka iyo size-ka ayaa kala yar ta ugu dambaysa hadana laascaanood ka dhigno H6 laascaanood hadan ka dhigno laascaanood waxay noqon doontaa ta ugu yar xagga size-ka وكا توغير أي نقطة دوتا مركا هيرس ساسا الله استعماله هيرس كول مركا عوانك وين عوانك ير ساسو قرا لو كلا استعماله وهي هي waxaan ku xigsiinayna salaam waxaan qoranaa intan inaga saar Hargeysa kaliya inoo taa Hargeysa degmooyinkeeda kale aan odhanaynaa Hargeysa horta markaan doonno inaan style ku darsanaa ستايل لوgu daro waa CSS ka soo sharaxnay in Hargeysa kaliya markaan ku deyno Hargeysa bartaas iska taala style san ugu darno meel cusub aan soo furanaynaa ama notepad ama control plus n baan taabtay kadibna waan save gareynayaa si CSS aan ugu save gareeyo way CSS aan ugu save gareeyo way halkan style waxa doontaad magaca waxa doontaad ka dhigin kartaa style.css waa sax CSS ka hadaba waa in lagu soo xiraa si aan ugu soo xidhno title hoostiisa inuu tagaynaa kadibna waxaan leenahay linki rel horta ugu horeyn waa inuu taagi inuu soo furnaa linki rel equal style sheet halka mar walba intaas ayaa ka horeysa wayahay style sheet style kan ku soo xidhayno marka imika linkiga waa kan href equal style.css waa inay isku folder yaalaan anigu videos kan dhex dhigay isku folder bay yaalaan isku folder ay yaalaan style-kii iyo html-kii iyo css-kii labadiiba marka waa qasab inay isku haddaan isku folder ka dhigina waa inaad raacisaa tusaale haday folder kale ku jirto m la yiraahdo m oo laga sii dhex galay css waa inay noqotaa waayahay saas ku soo xidhaynaa saas ugu xidhan yahay marka CSS muxuu noo qabanayay CSS wuxuu noo qabtaa wuxuu qurxiyaa HTML-ka waxa lagu dhex qoro tusaale ahaan imika Hargeysadaas oo kale Hargeysadan oo kale ma qurxinaynaa tusaale ahaan waayahay marka style-kii h1 baan qoraynaa h1 markaan qorno tag baan soo furaynaa h1 farteen ka dhignaa tusaale ahaan font family baa la isticmaalaa font family Arial buu ka dhig faraha noocyadooda waa inaad kala baratay CSS-kooda وقع فرتي ويسبدشي tusaale ahaan imika haddaynu intan iska qaadno aynu san nidhaahno horta marka hore saasay ahayd defaultiga waa new time new roman weeyaan horta la time new roman kadibna aynu intii kusoo celino aan save garayno waa mar kasta waa save garanaysaa marka style linkigaas waa inuu si fiican ugu xidhnaado isku folderna waa inay ku jiraan linkiga u fiirso inta linkigaas waa inuu si fiican ugu xidhnaataa waayahay kadibna si aynu farta usoo dhigno bartanka halka bartanka saan usoo dhigno Hargeysada waxaan isticmaalaynaa horta magaca Hargeysa iska bedelno first lesson man ka dhigaynaa first lesson welcome first lesson ama welcome kaliya nagu dah welcome kaliya waa sax waa sida oka si bartanka aan usoo dhigno Hargeysa bartanka ayaa waxaan isticmaalaynaa text align word-ka waa la isticmaalaa text align tan aniga wuxuu isticmaalaya auto complete isticmaalaya wikipedia markaas sideeda u qoraysaa video ku dood qabanaysaa kadibna wada eeganaysaa xarfahan qoro text align oo dhinac dhiga tusaale center hadana dhaafo centerka ayuu dhigaya center markaan dhaafo farta weyn centerka soo dhiga haddaan dhaafo centerka inta ka masxul left aan dhaafo muxuu ku celiyaa halkeedii ku weynaa left oka haddaan right idhaahdana midigtu geynaya والكو كينيا هالكاسو كينيا ريفرش مركان سيو مر والبا والله ريفرش كينيا wax ka bedeshid xaqana wala save gareynaya marka soo ku qortid waayahay
haddaba colorkana aynu imika u tagno sida midabka looga bedelo color umad qoraysaa color sidaan waa loo qoraa American standardka laakiin tan British kanu qaadanaynaa color bal white ka dhig white haddaan ka dhigno waxaan helayaa meeshii way masaxanta waayo marka hore backgroundkeenu white ahaa marka blue haddaan ka dhigno ka waran blue buu noqday red haddaan ka dhigno ka waran marka colorisku sida loo isticmaalo red nacsan buu ka dhigayaa sida loo isticmaalo waxa jira qaar la yiraahdo hexadecimal oo hash lagu horeysiyo tusaale intaad hash ka horeysiisid 2094 oo kala dan isticmaalno color blue go dhow waka saasoo kale hexadecimal bal 10 gooniin ku qaadan doona iyagana marka color inaga blue geena inoo gudaa blue geena inoo gudaa color blue mar kasta labada dhibcood way ka horeynayaan tag way blue waa sax marka right ka inta gadina center kan keeno waa sax farta hadaba taas maxay ahayd font family waa maxay farta nooceeda tusaalaan Arial haddaan magaalan Calibri ka dhigno farti nooceedu isbedelay haddaan ka dhigno tusaalaan waxaan ka dhigaynaa Times New Roman sideed hore ku noqonaysa defaultigeeda hore waa yahay marka waxaan ka dhigaynaa farta bal nooc kale ha impactable ka dhig waa buurbuur ba ka dhigaysaa wada waaweyn impactidaaba ku daa waa yahay marka waxaan u sameynaynaa farta faraha noocyadooda weyn oo inaad farahana kala barataa marka doonaysid inaad web developer noqotid HTML kuna waa the most language iyo CSS ku ee lagu isticmaalo website-yada kuwaas oo ka caawinaya inaad noqotid developer fiican hadhow way waxaan u galeynaa size-keeda font ma taana maxay ahayd taas waa font family tan waxa weeyaan font size fontiga ama farta waa maxay waa tan aan qornay weeyaan farta size-keeda insan ka dhigno tusaale 40 pixel haddaan ka dhigno pixels baa la isticmaalaa inta badan 40 pixel waa tan haddii ka sii waaweynayno 200 ka dhigno ka war 200 pixel waa tan gebigeediba meeshii way qabsatay waxa jira font size way hay colorkiina bal colorkan hadaan imika salaam pink oo kala ka dhigno xasuusi waka hadaan black ka dhigno black coloradii midabada iyo fartooda waa inaad iska ogaataa way hay text transform way taasina waxa weeyaan farta ma waxaad ka dhigaysaa uppercase marka tan ka dhigno text transform waxa weeyaan tusaalahan halkan oo saan ku eegno text transform waxa weeyaan markaan saas oo kala caali oo kala Soomaali ku qoro sida ugu horeysa ma aad ugu horeysa way weyn tahay marka la sida ma qori karaa way wada yar yihiin marka la waan wada waaweynin karaa marka waxa la yiraahdaa text transform baa la yiraahdaa marka HTML kala dhex joogo ama CSS-ka marka imka uppercase haddaan ka dhigno uppercase waa wada waaweyn farta welcome taasi wada waaweyn bay noqonaysaa uppercase haddaan ka dhigno lowercase na wada yar bay noqonaysaa dhamaantii haddaan ka dhigno capitalize farta sida loo qorayo marka hore iska hubso capitalize xarafka ugu horeeyay weynay kii ugu horeeyay W dunba xaraf weyn noqotay W da ugu horeysa unba xaraf weyn noqotay waayahay maanta 10 halkaas uu nagu joogayo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh mogaanin like share and subscribe channelka Qansa Media